الله الرحمن الرحيم. لما شعب الصوماليات مركز جوغان حنكون سلام الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن شركة جرايد وقبتي ونكهل يا هشيسكي لصحيح حيدوان أو كسب سنة شدالك الصومالية. سيدا الله سعوتان شالي باور باينتا وحلقة ورحلي هشيس ووزيركي بتروكا لقلي شركة دليرا كوستلاين 15 فبراير waxaan noo sheegay heshiiskaas inuu jiro shirkadda Coastline markay ku qortay ku baahisay website-keeda ka hor ma aanan ogeyn oo shirkadaas ayaa baahisay sababta ay shirkaddu u baahisayna waxay ahayd inay adduunka ogeysiiso inay dawladda Soomaaliya heshiis la gashay si ay shirkadaha waaweyn ee shidaalka qodaahu ay ugu tartamaan kontraagas ama heshiiska shidaal ee iyaga la siiyay markii uu soo baxay heshiiska ayuu wasiirka hadlay oo sheegay inuu jiro heshiiskaas oo uu cadeeyay inuu u diray madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo in heshiiskaas asaga ah la galo xogta aan helayno dadka ka agdhow heshiiska ay noo sheegeen waxa waaye in xirmo kasta ama ceel kasta laga qaatay 2 milyan oo dollar oo lagu magacaabay bonus ama wax la yiraahdo dawladda in la siinayo oo ogeyn ilaa hadda meel ay ku dhacday oo ah 4 milyan todobada ceel la sheegay markii lagu dhufto iyo 2 milyan oo dheeraad ah oo dadkii howlahaas dhinaca Soomaalida facilitate gareena ama sahlayay jeebka loogu riday xogta aan hayna ilaa hadda waa 16 milyan oo dollar waxaa lagu bixiyay 7 ceel shidaal oo kuwii ugu muhiimsanaa dalka Soomaaliya dabcan shirkadda Coastline ee taqaanaan hore waxaa loo oran jiray Soma Oil waa shirkad ayada dhanba 2013 la sameeyay loona sameeyay arrimaha Soomaaliya oo kaliya shirkadaas yar waxay sii iibi doontaa xogta iyo heshiiska ay waxay ka iibi doontaa shirkado ka waaweyn ayaga oo laga yaabo markaas inay ceelasha qodaan ceelashaasna ay ku kacayso qodaalkooda balaayiin dollar oo dadka Soomaaliyeed hantidoodii iyo dhaxalkoodii intaasba waxaad ogtiin ayuu xilli kale guura lagu jiro doorashadiina ay ka dhiman tahay dhowr cisho in arintaas lagu dhaqaaqay sida uu wasiirka cadeeyay oo madaxweynihii hore ee muddaxileedkiisa dhamaaday ee haatan u taagan tartanka xilka madaxweynaha oo arintaas ku lug leeyahay walow uu inkiray waa caadadii lagu yaqaanay wax walba inta amro ka shaqeeyo sameeyo hadhowdiin oo inkiro laakiin midaanu kuwii la isaga harayay ma aha sidaas daraadeed shacabka Soomaaliyeed xogtaas horta waxaan uga mahad celinaynaa oo nala wadaagay shirkadda Coastline ee dawladda Soomaaliyeed ama kooxdii waxa soo saxiixday nooma aysan sheegin dalkeena waa hodan waxaa ka buuxa kheyraad waxaa ceegaaga macdan iyo shidaal iyo gaas iyo nooc kasta ah laakiin in la xado ama la dibandaabiyo ama dadka Soomaaliyeed aan looga faa'iideynin ama oo lagu noqdo jahiim ama jahannam oo lagu noqdo marnaba waxaan rabnaa inaan ka faa'iidno sharciyaha loo sameeyay abraaciyaha loo abuuray in dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada wada jira iyo dadka Soomaaliyeed oo ka warqaba arintaas meel cad lagu saxiixo taariikhda ma dhicin Soomaaliyeed kama dhicin dal kale adduunkana kama dhicin in heshiis intaas la eg oo 7 ceel shidaal balaayiin dollar ay ku kacayso in dal shisheeye lagu saxiixo si dhuumaalaysi ah loo saxiixo iyadoo hanti dhowrka uusan joogin xiraalintii aysan joogin garyaqaankii guud uusan jeegin xukuumaddii guddigii wasiirada loogu talagalay arrimaha inay wada hadal ka galaan aysan joogin dawlad goboleedyada waxba ka ogeyn ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta iyo madaxweynaha muddaxileedkiisa dhamaadayna ay ka kala carareen laakiin wasiirkii oo sheegay in uu arintaas madaxweynaha la ogaa wuxuuna caadaystay sidaan hore u sheegay wax kasta inta inkiro oo asaga yahay ninka diray Soomaalida taas inay ka daashay ayaa hadda muuqata waxaan rabnaa marka oo aan dalbanaynaa talaabooyinka soo xigxiga in la qaado in talaab oo ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ka qaado cidii falkaas ku lug lahayd haday tahay guddi iyo haday tahay wasiir intaba labo in xogta iyo macluumaadka ay hayaan gacanta dawladda lagu soo celiyo oo hadda laga soo bixiyo gacanta dadkii isku dayay inay lunsadaan arintaas iyada ah waa in hanti dhowraha guud iyo garyaqaanka guud
ay arrintaas ka soo saaraan iyo xukuumaddaba mowqifkooda ay caddeeyaan si shirkadahaasu aysan hadda ka bacdi suuq u sii geynin oo shirkado ka waaweyn aysan ka sii iibsanin heshiisyadaas oo ay cad yihiin heshiisyadaas inay yihiin kuwo buray ayaa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo hantida laga qaato shirkadahaas laguna soo celiyo ama ayaga loo celiyo maadaama ay bixiyeen maadaama heshiiska la burinayo ama lagu soo celiyo maaragtay waana caddaan doontaa shirkadahaasu waxaan shaki iga jirin in ciddii lacagta ka qaadatay ay ayaga dacwayso doonaan oo ay dabageli doonaan hadday tahay madaxweyne hore hadday tahay wasiir iyo hadday tahay guddiga intaba hantida ummadda soomaaliyeed waa maguuraan waa dhaxal dadka soomaaliyeed ay leeyihiin waan aaminsannahay in la soo saaro shidaalka waan aaminsannahay gaaska in la soo saaro waan aaminsannahay macdanta in la soo saaro dalkeenu waa hodan dadkiisana looga faa'iidaysayo laakiin luuq mugdi ah iyo meel qarsoon ma aha in arrintaas ayada ah lagu sameeyo sidaas daraaddeed annaga 5 sano soo dhaafay waxaan u taagnaa doonaa inaan ilaalino hantida dadka Soomaaliyeed aan badbaadino hantida qaranka oo aan ilaalino kuwa isku dayaya inay la dhuumaaleystaan ama ay la tuugeystaan aan ka hor istaagno sidaas daraaddeed mar kale ayaan ugu baaqayaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda xilgaarsiinta inay arrintaas tilaabta degdeg ah ay ka qaadaan waqti ma harin sida ugu dhaqsaha badan hanti dhowrka guud iyo garyaqaanka guud iyo dhammaan heshiiskaas la isugu tago sidii loo buri lahaa waxaan dadka Soomaaliyeed u sheegayaa maxamed cabdullaahi farmaajo 5 sano uu soo qalday markii aad dooranayseen waa in siray 5 sano xukunka xatooyo iyo sir iyo musuqmaasuq iyo kala tirsan uu ku joogay inuu ka been fariimo ka been sheego waxa uu asaga bilowgeedii dhamaadkeeda leeyahay maanta inii kala cadaatay maanta aad kala ogaateen haddaad tihiin xildhibaan haddaad tihiin senator ha ku logoynina dadka Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay iyo dalkiisaba in kooxdaas u eg qowleysatada ama maafiyada in dalka laga wada badbaadiyo oo aan dhamaantii ka badbaadino waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh